السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واسمويد له كسو دواد يوتيوب channel كيغا Bake with Asumi channel كادتكو عصوب تهي او اي تهي مركي كورتا سو بوخاتي فضلا سبسكرايب ان شاء الله ما توحيد الوذاقية كيغا سنو سمي ميلك كيك وكيغا عيدو قتلقالي عيد مبارك وكل عام وانتم بخير وكان كيغي وحوكا كوبنا waxaad soo qaadanaysaa laba weel oo aad ku shubatid beedkan kala qaybinaya inta cad iyo inta cas baan kala saaraya marka waxaad u baahan tahay laba meelood aad ku kala shubatid keegan waa keeg sponge yaroo khafiifan ka dhigaya marka beedka waa inaad inta cadna gooni u qooshtid inta casna aad gooni u qooshtid keegan qiyaasta u baahan tahay waxa weeyaan 4 midho beeda koob sonkora koob barkii oo ah daqiiq mulqaacad baking powder mulqaacad yar vanilla ah laba mulqaacadood iyo badh caana ah intaas u baahan tahay sida arkaysan beedka waan kala saaray intii cadeed iyo inta casayd hadda koobka sonkora labaan u kala qaybsanayaa inta yar waxaan ku darsanayaa beedka inta cad sonkorta inta badanna waxaan ku darsanayaa beedka inta huruuda amba inta cas macasaan baa mise huruuda waxaan sameeynaa mashiinka soo qaadanaya si fiican baan u qooshayaa ilaa intuu kalarkeedu cadaan ka noqonayo oo hawo badan galayso imka waxaad arkaysaan wax kale maaha waa sonkortii iyo beedka inta huruuda oo kaliya markaad xoog u qooshtid waxay ka caawinaysaa inay hawo badan gasho beedkii markaas keegan waa sponge cake waxa rabaa maadaama caano badan ku darayo inuu caanaha si fiican ay u cabo keegu hadda waxaan ku darsanayaa koob barkii daqiiqdan anigu isticmaalaya waa self raising flour laakiin hadda daqiiq caadi isticmaalaysid mulqaacad yar oo baking powder ayaad halkan ku darsanaysaa waxaan sameynayaa mulqaacadan ku qooshayaa keega marka daqiiqda lagu daro waxa fiican mulqaacad inaad ku qooshtid haddii kale keega uu ka adkaanayaa marka mulqaacadan ku qooshiya halka waxay ku jira laba mulqaacadood iyo badh caana aan idin sheegay qiyaasta waxay noogu jirtay laba mulqaacadood iyo badh caana iyo mulqaacad yar vanilla intaana imikan ku darsanayaa sidii markii hore aan u qooshay umaan u qooshiyaa mulqaacadii baan isticmaalaya weliba mulqaacada xoog uma qooshaysid marba dhinacabaad aayar ka soo rogaysaa keegan aad baa loo ilaaliyaa because hawo badan baa gashay hawadana ma rabno inaynu ka saarno marka kolba aayar yaa waa la sasabaya keegan waa la sasabaa marka saas buu diyaar igu tahay intii huruudahayd beedka hadda waxaan u tegayaa intii cadayd iyo sonkorta intii yarayd koobkii sonkorka ahayd waanagii laba soo kala qaybinay mashiinka waxaan sameeyay waa soo meedhay because isagoo nadiifa waa inaad beedka inta cad ku qooshtid haddii kale beedku si fiican kuguma qooshmayo waxaan sameynayaa mashiinkan xoog u dalaacnayn baan ku shidayaa inta hore sonkortana marba in yar baan ku darayaa tani waxay ka caawinaysaa inuu beedku si fiican kugu qooshmo uu kuu soo bato oo hawo badan ay u gasho haddaad sonkorta mar qura ku shubtid laakiin beedku si fiican kuguma qooshmayo waad aragtaan dee si fiican buu igu qooshmay u fadhiistay ya hadda waxaan ku darayaa keega intii kalen diyaarsaday beedkii intii huruudahayd iyo daqiiqdii iyo wixii laba haaf aan u kala qaybinayaa marka hore haaf baan ku darsanayaa haafkaas ayaan si yaroo aayara u dhexgelinayaa inta cad iyo beedkii intii huruudahayd iyo daqiiqdii keega batarkiisi aan markii hore sii diyaarsaday still waxaynu ilaalinaynaa hawadu inay ka baxdo keega markaa kolba aayar baynu qooshinaa haafka kalena waad ku darsanaysaa sidii si leeg baad u qooshaysaa dee waxay noo hadhaba inaynu dubno waxaan ku dubayaa 175 ofinku ii shidan yahay waan sii kululaystay waxa aad iyo aad muhiim u ah ofinka markasta ood wax ku dubaysid inaad sii kululeysatid si waxaad dubaysid uu temperature isla kugu bislaado keegan wuxuu ofinka kugu jirayaa 25 mirir ilaa 28 mirir keega markuu bislaado
waqtigii aad timerka ku buuxsatay ku dhamaado dhexdaad findhicil baad kaga mudaysaa haddaad aragtid inuu qalalan yahay markuu 25 minutes ku jiro aad ka soo saaraysaa haddii kalena adigu 2 to 3 minutes kale aad ugu daraysaa markuu keegu bislaado eed aragtid dhexda inuu qalalay si fiican waxaad samaynaysaa ovenka waad ka baktinaysaa albaabka ovenkana waad u furaysaa albaabka ovenka oo furan baad ku daynaysaa adigu ilaa 20 minutes halkaa iskaga qaboobo haddii kale uu isku soo ururaya haddaad markiiba intaad ka soo saartid dibadda soo dhigtid waxaan samaynayaa dusha waan iskaga simayaa level baan ka dhigayaa ovenkan gelinayaa waa ii diyaar maasha allah waa kaas waad aragtaan keegii waan ka soo saaray ovenka saasuu igu bislaaday hadda waxaan diyaarsanayaa foog amba adigu waxaad ku daldaloolsid baad u baahan tahay si caanaha hadhowda keega si fiican ugu wada cabo caanihan ku daray baan soo diyaarsanaya keega waa milk cake marka halkan waa halkii ugu muhiimsanayd halka evaporated milk baan ku haystaa condensed milk keegana waxaa igu jira caano caadi ah marka koob halfkii oo caano ah iyo koob halfkii evaporated milk ah iyo koob halfkii oo ah condensed milk baan isku darsanayaa si fiican baad iskugu qooshaysaa condensed milk waa adayg because sonkor badan buu leeyahay oo hoostu fadhiistaa marka waxaan sameynayaa si fiican baan iskugu qooshayaa caanaha adigoo intaad rabtid ku darsan kartaa haddaad adigu rabtid qoyaan badanna waad ku badsan kartaa haddii kale rabtid inuu yar dry ahaado waad iska yaran kartaa keegan wuxuu fiican yahay markuu xoogu qoyan yahay markaasuu aad u fiican yahay insha allah saasaad sameynaynaa caanihii dushaan kaga shubayaa keega waad arkayseen markii hore foog baan kusii daldalooliyey markaas oranina waxaan u caanaata loomaanu keega dul fadhiisanayn ma dul fadhiisanayo keega cabaya hadha waxaad arkaysaa keegiyo maashallah soo buuxsamay oo caanihii si fiican ay u dhammaadeen oo caanabadii aanad arkayn yaa markaa waxaan sameynaya talaagadan gelinaya adigu ilaa 2 saacadood amba intuu ka qaboobayo because weli uu yara diiran yahay intuu ka qaboobayo caanahu si fiican ugu wada cabiya haddaad waqti haysatidna habeen bad saas kaga deyn kartaaba haddii kalena adigu 2 saacadood waa enough de waa kaas cream baan u sameynayaa halkaas waxaa yaala double cream waxaa kaloo ku darsanayaa sonkor xabadda double cream ama mulqaacad sonkoraan ku daraa sonkor badan uma baahna iyo vaniladana in yar baan kaga darsanaya adigu mulqaacada yar intaasna waad isku qoosh de waa kaas mashiinkaad ku qooshaysaa creamka markaad aragtid inuu soo adkaanayo xoogna aanu u adkayn baad mashiinka ka daynaysaa haddaad xoog u adkaysid hadhow markaad istiraatid go creamku keega uu ka fuqaya markaas haddaad doonaysid inaad keegii creamka si yar qurux badan u wada goosatid creamkun xoog u adkayn oon ahayn sidii keega kii lagu decorate garaynayay ayaad ka joojinaysaa waxaan sameynayaa dee dushumaan ka decorate garaynayaa keegan uma baahnid inaad ka saartid tiinka aad ku dubaysid waayo de wixii caana habeen ku darnay waad dareemi kartaa keegu aad buu jilicsan yahay markaa dushumaynu ka decorate garaynaynaa si fiican bay u wada gaadhsiinaysaa hareerahoo dhan meel yarna inay banaanaata maaha dee waa inuu creamku keega wada qariyo oo si qurux badan oo level ah aad u gaadhsiisid insha allah waad aragtaa already quruxdiisa dhadhankiisana istabes wallahi keegan aad iyo aad buu macaan yahay yaa anigu markan keeg nafteyda u rabo keegana samaystaa milk cake waa amazing ila soo tijaabiya insha allah ciid mubaarak waxaan rajeynaya inaad ka heli doontaan videogan ha ka iloobina like share commentka wixii fikradeed haysaan haddaad samaysaan sawirkii la soo share garaya snapchatkayga asumi1 instagramkayga asumi1 waxaan ku decorate garaynayaa uun fruit strawberry aan jarjaray iyo blueberry keega intaas igaga dhan yahay dee commonka waa xaggiina wixii fikradii wixii taalaya tusaalaad haysaan keeg haddaad samaysaan instagramkayga ad igula soo wadaagi kartaan asumi1 amba snapchatkayga asumi1 hadda
afurkii bay gaadhay dee hortii bal waa inaan naftayda ku tirid garayo keegii yeah it's amazing keegani marka masha Allah I love it idinkana waa idila jeclaaday ciid mubaarak wa kullu caamin wa antum bikhair السلام عليكم ورحمة الله وبركاته